hay'adda Al-Najax Foundation ayaa waxa ay deeq soo gaarsiisay ku dhawaad 800 oo qoys oo ku kala sugan degmada Garada iyo deegaanada hoos yimaada. Dadkan oo kuwii abaartu barakicisay xoolahoodana ku waayay ayaa waxa ay si habsami ah ugu qaybisay mas'uuliyiinta Al-Najax Foundation dharkaasi iyadoo ay goobjoog ahaayeen maamulka iyo mas'uuliyiinta degmada Garada ayna u mahad celiyeen hay'adda Al-Najax Foundation gurmadkani ay ka qayb qaadatay. waxayna sheegeen inaanay ahayn markii ugu horeysay balse hay'addani ay marar hore ka soo qayb qaadatay gurmadka abaaraha ee deegaanadaasi. waxaana hadalladoodii ka mid ahaa hadda ka hor nagu aragteen halkan wax ku qaybinay raashin inagu waxaan nahay muassasatu Najaax al-Khayriya dhowr meelood oo gobolka Sanaag ka tirsan ayaan raashin ku qaybinay kadalika Saraarna gobolka Saraarna waan ku qaybinay Sool baan ku qaybinay waxaan mar kale maanta qaybinaynaa dhar مثلا waxaan siinaynaa dumarka jalbaab goongarad diraac وكذلك هبلها يريرنا waxaan siinaynaa wax weeyaan dharkii maaragtay dhar isku joogan siinaynaa inamadana sidaas oo kale yaryar dhar isku jooga kadalika ragga waaweyna waxaan siinaynaa macawisyo iyo shaarad markii aan aragnay runtii dadka baahidoodu inay badan tahay dhinac walbana baahidu ay ka haysato hadii ay dharkii tahay hadii cuntadii ay tahay biyi ay tahay ayaa marka waxaan isni bal wixii marka adili kartaan qayb walba wixii laga tari karo saasan marka u soo noqonay waxa imika ila jooga dadkii maamulayaashii maaragtay degmada oo maaragtay markii degmadu ka mid yahay isaga insha Allah ta'ala ku wareejinaya farax waxaan maanta lagu qaybinayaa ka kooban afar nooc oo tiradiisu ay gaarayso ilaa ay kaga faa'iidaysanayaan ilaa 800 oo qof dad gaaraya جزاكم الله خير مالنا hay'adda Al-Najax Foundation fadhigeedu yahay magaalada Hargeysa جزاكم الله خير baan leenahay mar horena way soo gaarsiiyeen raashin sidoo kale iminkana waxa weeye markay baahida arkeen waxay ka soo qayb qaateen haddana dhinacii magaranaysa dharka dadka aad arkaysaan wadadkii ay xoolihii ka bixeen ee barakacayaasha ahaa oo runtii goobo badan oo degmada ka mid ah ka tirsan weeyaan oo degan marka halkan waa ka mid goobaha kale waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala weelo meelo kale oo degmadana waan gaarsiin doonaa insha Allah mar labaad waxaan u mahadnaqaynaa guddiga abaaraha iyo hay'adda Al-Najax Foundation sida wanaagsan ee dadaalka walaalnimada leh ee ay magaranaysaa markii ay baahida ay ugu soo jawaabaan جزاكم الله خير baan leenahay baaqna waa u diraynaa mar kale dhammaan ummadda muslimiinta inay sidaas oo kale magaranaysaa walaalahooda baahan inay u soo taraan runtiina xaaladdu sidii hore way ka duwan tahay oo roobkii wali saan uma diin waxa weeye laba kacdayn muddo ku jirto marka waxaan leenahay la soo dadaalo mid kasta wax tari kartaaba waxay taraysaa maanta waxbay tarayaan Faraxa Cabdi Nuur, Fonkaygal TV, Garada.